xilli maanta madaxweyne maxamed cabdi waare uu ka degay garoonka diyaaradaha ee degmada buulaburde ee gobolka hiiraan ayaa waxaa shir jireed ku qabtay degmada jowhar qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hiirshabeelle oo ay sheegeen in ay uga soo horjeedaan tegitaanka madaxweyne waare uu tegay degmada buulaburde ee gobolka hiiraan. sidoo kale xildhibaanadan ayaa ka hadlay khilaaf maalmihii ugu dambeeyey ka taagnaa degmada buulaburde ee gobolka hiiraan in ay sabab u yihiin madaxweyne maxamed cabdi waare iyo weliba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hiirshabeelle maxamed cali caadle, waxaana ay xildhibaanadan sheegeen in ay iska horkeenayaan qabaa'ilaadka degan degmada buulaburde ee gobolka hiiraan. waxa garbahayga fadhiya, waxa garbahayga taagan, waxa xamar jooga, waxa jowhar jooga, waa xildhibaanadii ka soo jeeday degmada buulaburde. ma madaxweynuhu xaggee uga qoran tahay sharciga dowladaha hoose aan ansixinay inuu asagu ama hawshaas hogaamiyo ama uu ka qayb qaato? shaqada wasiirkaas kale, xildhibaanada ka soo jeeda degmadaas kale, dadkaasay shaqadooda tahay. xildhibaanadii lama socdaan, cid la socoto xildhibaan ah ama lagu soo wargeliyey oo shaqadaas ka qayb qaadanaysa ma jirto. waxaan uga digaynaa markaa shacabka inaysan ku kahdoomin waxaas la soo maleegay ee meeshaas ka jiro. runtii shacabku way feejigan yihiin, wayna ka warqabaan. waxaan uga sii digaynaa anagoo mas-uuliyaddeena waajibka gudanayno, annagoo ah xildhibaanadii shacabku inaysan kahdoomin. waxaan uga digaynaa dowladda hiirshabeelle haddaadan wax u tarin karin degmada buulaburde, walaalayaal waxba ha u dhimina. deegaan haddii wax loo samaynayo ama la aadayo sharciga sida uu qabo waa in xildhibaanada ka soo jeeda la kaxeeyaa oo ay socdaan xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka. war ninkan iska fadhiya halka bil fadhiya buulaburde macnaha u fadhiya ma noo sheegi kartiin? ilaan xildhibaanadii deegaanka ka soo jeeday ma wato, haye sow ku shaqaynaa soo shacabka ku dhexgalaa. taa waa midaas. maantana waxaaba ugu sii daray madaxweynihaba sii rakaabiba oo sii xoogga sii saaray qaladkii meesha ka jiray. haddana madaxweynihii maanta uu dul tagay qaladkii soo saxaaya. sidaas aawadeed waan cabbaaraynaynaa arrinta ka socota buulaburde haddii aan nahay xildhibaanada buulaburde ka soo jeedo. haddii aan nala xoogaynan, aan nala qasbaynan, raalli kama nihin. shacabkeenna iyo dadweynaheenna waxaan u sheegaynaa arrintaas inaynan wax jira ahayn. waxaanan diidannahay oon ka soo horjeednaa oon cabbaaraynaynaa arrimaha ka socda oo xerataraarka oo qudbasirada ah ee degmada buulaburde lagu hayo. degmada buulaburde sidii horeba loo sheegay waa degmo nabadeed, dadkiina dad nabadeed waa. dagaalaa lagu abuuray, dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay. mas-uuliyaddaasna waxaa iskale madaxweynaha hiirshabeellea iskale iyo cidda uu dirsado u adeegsadaas. waxaan u malaynayaa in marka arrintaas looga sii dari doono iyadoo dhibaatadaas hore u jirta. degmadaasu 8 sano ayay hawada u furan tahay, inta kale oo dhanna waa ka xiran tahay. markii loo tagana beena loo sheegaa, wixii laga ballan qaadana lama fuliyo. waxaan u sheegaynaa shacabka degmada buulaburde inay arrimahaas ku degdegin, inay ka fiirsadaan, inay xusuustaan cidda matalaadeeda leh, wada hadalkeeda leh, xilku ka saaran yahay oo xaqu ka saaran yahay oo xildhibaanada deegaan doorashadeeda mataqaan buulaburde ka soo jeedo. degmada buulaburde dhibaatooyin badan ka jiro. waxay u baahan tahay shacabkeedu shacab weligiiba isku duuban oo ahay, shacab weligii iska hor yimaada ma aysan ahayn. haddana conflict badana ka dhex jiro degmada. dadkii ka dambeeyna way joogaan. waxaana ayaan darro ah mas-uuliyiintii ugu sarreysay hiirshabeelle qaasan madaxweynaha inuu hadda maanta ku wajahan yahay arrimahaasna wax badan oo indhaha uu ka eeganayay in wax laga qabtane oo diidanay. maantana wuxuu u tagaayo anigu ma aqaan inuu ugu sii daro ma ogiyo wanaag iyo wax kale hadda uu ugu tagaayo hadda oo ii muuqdo ka xildhibaan ahaan ma qabo. waxaa kaloo rabaa hay-adaha shaqada kule konsolada macnaha deegaanka dhisaya sida CRD, SSF horena waan idinkugu sheegnay, waa idinla socodsiinay, haddana waan idinla socodsiinaynaa. wixii halkaas ka dhaca haddii degmadaas conflictiga uu ka jira iyo degmooyinka kale la midka ah ee aad caawisaan oo konsolanka dhisayna dhahdaan wax alla wixii ka dhaca mas-uuliyaddiisa idinka qaadi. maxamed cabdi waare waa walaalkayna, waa madaxweyne aan dooranay, laakiin xildhibaanadii shalay dooratay inuu garab maro ayagoo joogo caasimadii Johor ee uu yiraahdo konsolanka dhisaa Buulaburde
midaan u dulqaadanayna maaha mana u dulqaadan doonno dadka reer Buulburtun walaalahayna waxaan leenahay ka fajignaada ballan iyo axdiyaan ku galnay dastuurku Hirshabeelle ama xeer hoosaadka in maalinta la dhisaayo kostorka la dhisaayo ay soo dhisaan xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas waxaan u sheegay waxgaradka Buulburte in ay ka foolajignaadaan waxyaabaha aan waafaqsanayn bini'aadanimada aan waafaqsanayn dastuurka federaalka ee Hirshabeelle iyo xeer hoosaadka aan waafaqsanayn ee madaxweyne Maxamed Cabdi Waare iyo hay'adda CRD ee isla wadaan ay dad baabaa ee intaas go'doonahay jid u furayn aan u sameyn waxbarasho u furayn caafimaad lahayn ee go'doonaha ee baabaa ku jiray ee korkooda corruptionka ay ka raadinayaan ee awgood dad u dhintay dadna dhaawac u yihiin inay arrintaas ay ka foolajignaadaan waxgaradka degmada Buulburte ayaan u soo jeedinaynaa annagoo ah xildhibaanada Hirshabeelle. maalmihii ugu dambeeyay degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan waxaa ka taagnaa khilaaf siyaasadeed ee u dhaxeeya qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Hirshabeelle iyo shacabka degmada Buulaburde iyadoo oo la rajaynayo in laga dhiso halkaasi golaha deegaanka. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed ee Qalfa raadiyaha telefishinka dalsan Jowhar.